والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimka waxa uu ku amaanay dumar fara badan oo saalixaad noqday, dumar fara badan oo door fiican ka qaatay adduunka intay joogeen, dumar fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay inay noqdaan halyeeyayaal lagu daydo, xidigyo dumarka damba ay markaa ku daydaan. walaalayaal, waxaan rabnaa inaan wax ka tilmaano كوني صالحة إنم في عن نقو قبرها جاكسن أهو ناقي مله نقو كوني صالحة صالحة باخير بضن. الله كتابك كو أماني فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ضرب إلهي أدونك كو حفظه سبحانه وتعالى. اسم ذي ذا الله إلاليا، شرفتي ذا الله إلاليا، قيمه ذا الله إلاليا. إلهي بكركسو إلاليا سبحانه وتعالى بما حفظ الله. طبعا لحفظين وإمام متيسنين، طبعا لحفظين أو شيطانك أنقل أو فاسق أنقل أو متك عيال سوق أنقل أو سي الله الله سيدا دونت الله يشو. إلهي سبحانه وتعالى هذين كبت باذيه كوني صالحة ولا صالحة نقو قبر في عن نقو قبر إلهي أكتيس كأمانا أو شرف له أو عز له نقو سيكون نقون كرتا ما أراسك كعيارتي ذا ما سيكون نقون كرتا صالحات جيرك يقول قاون إن بنانك مرتا لا سيكون نقون كرتا صالحات مرك اللي قرصدو إن بوق إيا الدقال إيا قيلو أبلوضا ما سيكون نقون كرتا صالحات ولال وإن تكديتا أو أدفيرسا دمركو إلهي أماني سبحانه وتعالى. وإن أغاتا مر والبا أو قدوة كدغتو أو أتكديت كتابك الله وحو تلمامهيو الرعضو سنة النبي وحي تلمامي سأت كسعتو وحي كاريبين أتكهرتو صالحات بات قبر في عنو قيمة لهباتهي فالصالحات والدمر صالحات والضمر في عن وقانتات الله يطيعان سبحانه وتعالى. هدي لقول سذنا الله ينن كذا ويطيعان. فالصالحات قانتات حافظات وكو حفظ بضن ما هي حفظيا للغيب. مفسرين توحيدها للغيب وحلوا لجيذا حاجة مركو مغيه ويسألالين إيسا نفتي ذي إلالين اسمدي ذي إلالين قرقي سي إلالين ilmihii say ilaalinaysaa. aaway saalixaadkii noocaas ahaa walaalayaal, aaway gabdhahaasaa la raadinayaa maanta adduunka laga la'yahay ilaa in yar maahane. dhammaan waxaa loo batay inaan saalixiin la noqon. qofka saalix aan noqon qaasid buu noqdaa. wa ama alqaasituuna fakaanuu lijahannama xataba. qofkii noqda qaasidna oo raaci waaya oo saalixaad noqon weysana qoryihii dhex jahannamo waay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxaan baadi goob ugu jirnaa dumar saalixaad ah. waxaan rabnaa inaan helno dumar saalixaad ah oo hadday qadaanna alxamdu dhaha, hadday quutaanna alxamdu dhaha. waxaan raadinaynaa dumar mar allaala marka allaahu akbar ay maqlaan kushiinka ka soo bixi salliga ku istaaga, saalixad waaye. waxaan raadinaynaa dumar hidaacaddu markay muusig soo gasho demiya, mar allaala markuu qur'aan soo galana shida. waxaan raadinaynaa saalixad canuga yariiska ay dhashay maqribka markay dukato ay dhahda kaale kutubka soo qaadee meeshaan fadhiiso. laakiin assalaamu calaykum maqribka maxaa ka dambeeya musalsal, maxaa ka dambeeya filin hindi, maxaa ka dambeeya telefoon dad lagu xanto, maxaa ka dambeeya telefoon kuwa aan la qabinna ku hasaaba.
ilaa cishahu dhaafo salaada subaxna soo dhowaat heerkaasaa maanta la taagan yahay. gabdho ilaahay ka cabsada, gabdho saalixaad noo noqda, gabdho fiican noo noqda, aflagaadada joojiya, xijaabka xun iska dhaafa, rabbi u soo noqda, xufaad noqda, diinta alla kuwa xafida noqda. saalixad baad noqonaysaa, saalixaad baa khayr iyo wanaag ku jira walaalayaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada yuu geliyaa ina aladiina aamanuu wa camiluu الصaalixaat. haddana camal saalix ah oo fiican oo wanaagsan qabta oo sameeya, saasuu ilah leeyahay subxaanahu wa tacaala. goormee noogu dambaysay gabar saalixadoon aragno? ilaa 2 iyo 3 adduunka ku soo hartay maahane. goormee noogu soo dambaysa hooyo wanaagsan, ahlu diin ah, ahlu khayr ah, ahlu tawxiid ah, ahlu xijaab ah oo aan aragno? 5 iyo 7 adduunka ku soo hartay maahane. dib aan isku noqono, gadaal saalixnimadii aan u soo celino walaalayaal. nabigaa lala hadlay sala allahu calayhi wasalam, waxaa la faray dumarkiisa inuu la hadlo. yaa ayuha nabiyu, nebigaanow, rasuulkan sharafta lahow, midkan ilaahay dirsadayow, yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika, xaasaskaaga ku dheh, in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wa ziinatahaa fatacaalayn. adduunya doon maa tihiin? saa ku dheh. war haddaad tihiin dad adduunya doon ah, waayo qof adduunya doon ah saalix dhab ah ma noqon karo. qof adduunya doon ah diinta alla dhabnimo uguma dhaqmi karo. qof adduunya doon ah xaalkiisu sida dumarkeenay maanta yihiin ma noqdo. see noqdaa? sidii gabdhaha saxaabiyaadka oo kale. suu noqdaa sidii ilaah subxaanahu wa tacaala uu u ammaanay kuna sifeeyey dumarkii qiimaha lahaa. rasuulkii allow ku dheh xaasaskaaga, in kuntunna turidna alxayaata addunyaa, nolol doon haddaad tihiin, adduunye haddaad doonaysaan, iyo wasiinataha, dhalaalkeeda, quruxda adduunka, kaalaya waa laydiin talinaaye, fatacaalayna, kaalaya. rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof allaala qofka jecel, diinta ilaahay jecel, adduunkuu ka leexdaa, adduunkuu ka jeestaa, adduunkuu dhinac ka maraa. ma aragno dumar ku dagaalama sawjkayga salaaduu ka tagaa, 2 iyo 3 maahane. ma aragno dumar ku dagaalamaya amase ilaah subxaanahu wa tacaala dartii ugu dacwoonaya xalan salaada kicin waayey, xalan salaada subax u kicin waayey. saalixaad baa la rabaa. gabar saalixa saa samaysa, gabar ilaahay taqaanaa xaaladaa la timaada walaalayaal. laakiin waa aragnaa ballan uu iga qaado iiga baxay. maxaa waaye ballantaan iri? faraantii uu ii ballan qaado ii geli waay. kii aakhiro aaway saalixnimada walaalayaal. fartaadan haddaan wax la gelinin tasbiixdaa ku filan. subxaana allah aad laabto, walxamdu lilah aad laabto, adi waa kuu barako, guriga waa u barako, odaygu waa u barako, ciyaalku waa u barako. iska daa dariskay barako u tahay walaalayaal. faraanti waa ku jirta adig, waxaa ka hadlaysa waa faraanta. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nin faraati dahaba ugu jiro. waa istaagay, intuu ka qabtuu ka siibuu ka tuuray sala allahu calayhi wasalam. muxuu samaynaa? wuxuu u diidan yahay dhuxul naara inay ku jirto fartiisa. markuu ka tuuray, cabbaar la fadhiyaa rasuulku baxay sala allahu calayhi wasalam. saxaabadii baa waxay dhaheen, war maad qaadatid faraatigaaga aad ku intifaacdide. xataa haddii gashashada ragga loo diiday, suuqaad geyn kartaa, waad iibin kartaa, lacagta ka soo baxaad cuni kartaa, amaad sadaqaysan kartaa. intifaac ku samayso. wallaahi inaanan qaadanayn mar hadduu rasuulku tuuray buu dhahay sala allahu calayh wasalam. waa saalix waaye. maxaa kaa galay dahabkayga ku leedaha maanta? walaa riimaa ka soo gata, maxaa kaaga jiro? saamaa yeeshe, maxaa kaaga galay? maxaa kaa galay? ma socon doonto. maalin aan maanta ahayn baa jiri doonta walaalayaal. qof saalix ah ma ahee qof kale aan janno ilaahay gelin subxaana wa tacaala. maalin baa jiri doonta gabar saalixad ah maahane aan qof kale jannada ilaahay ku tallaabsan doonin. maanta maxaa kaa galada intaan iska joojino? ilaahay subxaana wa tacaala maa yiri haa samcan wa taacan. dadka iimaanka leh maxaa lagu yaqaanaa? idaa ducuu ila allahi wa rasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa atacna. ilaahu hadalkiisa waa maqalnay, ilaahay hadalkiisa waa ateecnay. muflixiin waa
وليبان بوضعي إلى سبحانه وتعالى كاليا فتعالين مع الله سمينا أمتعكن والذي متعصين يا متعة محل لجيدا ومتعة الطلاق نبي محمد وإذن فر يا صلى الله عليه وسلم نبي محمد وإذن سيدينا يا صلى الله عليه وسلم وحي رهدين أيضا وحي كسو دكتي مر الله لمركي انت فتوحات لهلي أي مسلمين توحوغا أكلا فرنتي يا دمركي نبيك وحي دهان هيا الله تنالك بدلو داها هلا بدلو واكو ما انت جوك كا ساهل يالو انت ساهل لك بحيو داهي اسبوعي عيدي هور ليغو اركي مره بين عيدان ليغو اركو يا محو دبادي ليغو اركو وحبا ما دهيسد عيدي هوري cibaadadayda meeshay joogtay mar in laygu arkee inaan ka badiyaan rabaa wax badan naga qaldan wax badan baa si naga ah war go waayo kan waa darbi wax la saaray darbi aad wax saartay janno lagu magalo dhul aad qurqurxisay wax lagu magalo maxaa janno alla lagu galaa waxa janno ilaahay lagu galaa inaad saalixad noqoto inaad gabar qiimo badan oo sharaf leh oo diinta alla ku sharafowday inaad markaa ahaato taasaa qiimo ku heli kartaa adduun iyo aakhiro sharaf iyo wanaag kaasaad ku gaari kartaa wallaahi waxaa taariikhda markaad akhriso dadkii hore salafkaad ka helaysaa gabdho inta xijaabka habeenkii dhaqdaan maalintiina soo xirta habeenkii way dhaqanaysaa miday ku bedelata ma haysato nin amiir ahaa ka sugnaatay xaalad noocaas ah raggii fiicfiicnaabaa saa ahaa raggii sharafta labaa saa ahaa gabar baa maalin loo tago waxaa la yidhi walaalay xijaab baan aruurinaynaa gabdho dhibaataysanoo xijaab aan haysanin ayaa la soo sheegaye bal xijaabahaada mid ka keen dhiibaa bay tiri mid muxaadaraan ku tagaa mid meelaha waxaan ku tagaa mid waa ku tukadaa mid aroosada u qaataa mid saana kee bixiyaa ii sheega bal kay bixinaysaa gabadha macnaha waxay u malaysaaba xaaladda noocaas ah ee xijaabaha ay saa u tirinayso inays waxba wax ka baxba inuusan markaa jirin mid salaaday ku dukataa mid jikaday ku gashaa mid markay marti u timaada xirataa mid markay aroos aadaysi qaadataa alaa iyo 7 tirisa magacada qayb kamid ah iga maqan ilaahay subxaanahu wa tacaala saana ma farin waxaa nala faray oo nala amray saalixad in qofka muslimka uu noqdo fatacaalayna umatickunna mutcatu talaaq waaye wa usarixkunnana waa lidin dirayaa waaye saraaxan jamiila gabar layga bedelo derbiga dhehaysa marada saaran nebi maxamed maba na noolaan kartaba sala allahu calayh wasalam yaa la noolaan karaa gabar baahan yaa la noolaan karaa mid hal xijaab wadata yaa la noolaan karaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii u kacda yaa la noolaan karaa mid baahi haysa waana dhacday xaqiiqdii 9 guri ee nebiga sala allahu calayh wasalam markuu akhbaar u diray uu yidhi marti baahan baa joogta ee wax soo dhiiba mid ayaa la waayey gurigeeda canjeero laga helo laxoox canjeero aa laga waayey mid kasta maxay tiri maa cindii hee ila almaa biya guriga yaala ashunkaa biyo ku jiraa waa saalixad ma cabaadayso ma qaylinayso ma aflagaa doonayso la maqli maayo dhawaaqa iyo wixida kale maalintee waa xishana diinta alle u adeegsataa gabadhaas aan tilmaamayna mid ka mid ah riba lagu qalay gurigeeda gabar jaariyad baa joogta way sooman tahay ridii inta la qalay ya xibin loo googooyey waa la bixbixiyey jaariyadii baa tiri hooyo gabal yaran ku afra ii reer baryan hilib ma cunine hor maxay xasuusaysan maxaad ii soo xusuusin weysay intanan bixin kuuni saalixad noqda war dad fiican oo hagaagsan noqda war qayladiina yaan la maqlin war afciyam taqaana cabaadkiina yaan la maqlin war dagaalkiina yaan la maqlin hal la maqla wax allaala wixii khayr leh ee ummad farxad gelisa walaalayaal wax dhagaha islaamku uu ku farxo muslimiinta waxay malaa'igtu ku farxdo wax ilaahay nooga abaalgudo subxaanahu wa tacaala waxa hala sameeyo kulli camal waa qabanaysaa waxna waa samaynaysaa hadalna waad hadlaysaa ama odayga ku dheh baastariyo isii xoolahayga ama dheh ilaahay ha ku wanaajiye wax xalaala noo soo raadi wax unba afkaaga ka soo baxaye wax khayr afkaaga ka soo bixi walaalayaal kunu saalixiin noqda in takunu saalixiin fa innahu kana lilawaabiina ghafuura
haddaad saalixiin noqotaan dad fiicfiican aad noqotaan ilaahay dadka awaabiinta ah waa mid u naxariista subxaanahu wa tacaala. saalixnimada layskama helo, waa sharaf ilaahay bixiye subxaanahu wa tacaala. qofkuu doonuusa ku manaystaa. gabar carab dheer lama siiyo, mid adduunyo jecel lama siiyo, mid ilaah subxaana wa tacaala ka furatay lama siiyo. yaa ilaahay siiyaa, waa xikmo. qof allaala qofkuu doonuuna ilaahay siiyaa, qofka uu jecel yahay yaa ilaahay siiya subxaanahu wa tacaala. haddii alla ku doorto, rabbi ku jeclaado, rabbi agtiisa khayr iyo wanaagkaa kuu qoran yahay, alla agtiisa saalixad baad ka noqonaysaa. saalixnimada wax la sheegta ma aha, wax ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu hibeeyo waaye. rabbi baa laga baryaa subxaanahu wa tacaala. saalixnimadu wanaagga ay leedahay, xataa haddaad saalixad noqoto walaal, owlaadda aad ka dhimato oo aad ka tagto, yaa xafidaaya allah subxaanahu wa tacaala. yuu u soo dirayaa addoommo xafidoo ilaalisa. muuse iyo khadir markay safarka galeen waxay u tageen qaryo baa la yidhi, istadcamaa ahlaha, ehelkeeday quud weydiisteen, fa abow an yudayifuuhuma, waa loo diiday. muuse iyo khadir in la marti qaado waa loo diiday, fa abow an yudayifuuhuma. fawajadaa fiiha jidaara yuriidu an yanqad, waxay arkeen derbi dumi raba, dhulkuu usii socdaa, dumitaan buu u dhow yahay. fa aqaamah, qadar baa dhisay. dhisitaanka qadar uu dhisaa muuse ka xumaaday oo yidhi low shi'ta lataqadta calayhi ajra. maxaad ugu dhistay? soortooda iyo rootigooda inoo diideen. maxaa ugu dhisaysaa? haddaad doonta ajir baad ka qaadan kartaa, orod oo wax nooga soo qaad. markii loo fasirayay muuse maxaa loogu fasiray? wa ama aljidaar fa kaana ligulaamayn yatiimayni fi lmadiina wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuuhumaa saalix. aabba fiicanaa dhalay, khamri yacab ma dhalin, qabiilista ma dhalin, alkulista ma dhalin, jaadcuna ma dhalin. yaa dhalay? wa kaana abuuhumaa saalixan. hooyo saalixad haddaad noqoto, eeddadii wacnaydaa dhashaa lagu leeyahay. yaa dhalay canugan? eedda faadumadii wanaagsanayd. yaa dhalay? eedda zaynabadii fiicnayd ee dhimatay. gacmaha koraa loogu qaadaa, koraa loo sidayaa. haddaad tahay ayuuta uruuriso aan salaad ilaahay tukanin, haddaad tahay qof ilaahay ka furto xijaab la-aan bannaanka mari jirtay, haddaad tahay islaam ummadda nafta u keentoo deriska laga ka ammaan waayeen, yaa dhalay? tii xumadaa dhashay. haraati loo geli mee la wanaajin maayo. war ilmihiina wanaag u samaysta. saalixnimada waalidka carruurtay anfacdaa. saalixnimada hooyo iyo aabbe ilmahay wax u tartaa. saalixnimadaa qiimo lehee saalixaad noqda, ilaahay subxaana wa tacala agtiisii qiime iyo wanaag laydinkugu siiyo. wasarixuhunna saraaxan jamiila. maxaa soo haray? intaa waa intaan saalixiin ahayn, calaamadda lagu yaqaano. wain kuntunna turidna allaha wa rasuulahu wadaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima. haddiise aatiin kuwa ilaahay raba, in kuntunna turidna allaha, ilaahay ma doonaysaan? ha. rasuulkiisa ma rabtaan? ha. daarta aakhira ma rabtaan? ha. faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiiman. intaasaa lagu helaa daar aakhiro, ilaahay raadi ahashadiisa iyo nebiga shafaacadiisa sala allahu calayhi wasalam. waa haddii qofku saalix uu noqdo. saalixaan ahay ma xijaabanay, ma soconayso. saalixad baan ahay, waxaan ahay gabar saalixad ah, ummaddana waa dhibaa, yeeli maayo. saalixad baan ahay, qof kastana waa ku necab yahay. ilaan gabdho waxaa jira la helayaa oo fidra ahaan loo helayaa, waxay tahay waana xijaaban tahay, waana islaamnimo u nisba sheegan, dugsiga way dhigataa, muxaadaro safka horay gashaa, masaajidka taraawiixda loogama hormaro, laakiin qof allaala qofka arka agteeda kuma tukanayo. gadaal oga durka tii ku qaldanta xataa allah akbar markay dhahday aragto waa ka furay salaada, gadaal u bixisa. waayo saalixad ma aha. wallaahi waa la helaa, raggana waa laga helaa, idinkana waa laydinka helaa. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay akhlaaq ma laha, anshax ma laha, usluub ma leh, lama hadli kartid, wax uma sheegi kartid. soo buufaysa ayada dhan. ilaahay ka cabso, kii dhahay ugu necabta waa isku mid. kii ilaahay ka cabsiya ka cabsanin dhaho lama rabo. saalix waxaa lagu yaqaanaa iyo saalixad. diinta allana waa dhegaystaan, amarka ilaahayna waa qaataan, diinta ilaahayna way ku dhaqmaan. saasaa lagu yaqaanaa saalixade. saalixiin noqda, dad wan wanaagsan noqda,
ilaahay ateeca diintaa ku socda haddii ilaah subxaana wa tacaala ciriiri keeno meeshii looga baxo ilaahna tusay subxaana wa tacaala ma aha saalixad baa tahay ahlu salaadaa tahay ahlu xijaabaa tahay waad dhargaysaa gurigaaga waxaad doontaa lagu siinayaa meeshaad doontaad ka degaysaa wax allaala waxaad helaysaa ma aha nebi moxamed asagaa noogu saalixsanaa calooshana dhagaxa ugu xirnaa sala allahu calayh wasalam min aljuuc baahi daraaddeed waa la is-imtixaama waa la isdhibayaa 5 bir markaad xijaabka wadato sida gabdhaha gobol laga sheego la guursan waayo waxay leeyihin bas ma jirto maxaa la rabaa marka uma soo xijaabatay maxaa u xijaabatay in gur aad ku hesho maya ma waxaa u xijaabatay in xoolo lagugu siiyo maya ma waxaad u xijaabatay in dadku amaanaan waa maya ilaa yaqiin ay kaaga timaada ilaahay ku amray waxa lagu siin doonana waa wax maa laa caynu ra'ad ah walaa udunun samicad ah walaa khatara calaa qalbi basharna ah kaa waay waxaad u xijaabanayso ma gaarin weli meeshaad higsanaysa hinkaagii weli ma gaarin meeshii aad rabtay inaad shahaadada ka qaadato waa weli ee ma aha waa xijaabana dhowr maalmood baan xijaabtay waa in laysoo doontaa dhowr maalmood baan xijaabtay waa la iisoo doontay waa inaan dhalaa waa inaan umu khalid ii bixiya umu suhayb umu salmaan sida dumarka hadda joogo kale gabdhaha magacyada fiican baxsada xaaladda noocaasoo kale ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sharaf iyo qiimo ku gaaraa aad bay dumarka gobolka mid ah ee saalixaadka ah ugu ammaanan yihiin magacyada ayadoona weli ilmo helin iyo iska tamaninaysaa maxay tamaninaysaa mid waxay jeceshahay umu anas ibni malik in la dhaho mid waxay jeceshahay umu khaalid mid waxay jeceshahay umu suhayb mid waxay jeceshahay umooyin fara badan maalmaha ka mid ah fasalan galay ma aha arday oo mtaqaanaa oo xijaabano ahlu diin ah gabar baa magaca Saacdi Michael Beter تيلا مقعاه شكر عدوين بيت تي سدحات بري أذيك مقعاه كاسي حيتيري وحلا إيدها محيتيري مقع كلي أيضا شاكت هذه مايكل شكر عدوين إيو وحيتيري هبل جاست إيو وحنا عاسو كلي البابين تي أفرد وك أمس واي wax ka darnayshige marka taa waxa farqi u dhaxeeya gabdhii horan wad u jeedaa xilliga caasin iyo gabdhaha caasi bawrta caasi lacagta caasi la mari jiray wax walba saasay ahaayeen hadda falillaahi alhamdu waxaan maraynaa gabar 12 jir ah kutubkeeda fiiri saa u fiiri meesha hore waxa ku qoran nin haliyay ah magaciisa inay canugeeda u baxsato wal taajub zubayr ba ugu qornaa zubayr ibn awaam mataqaaniin zubayr wama adraka ma zubayr nin cajiib badan ummad kasta xawaari bay lahayd xawaarigayga waa zubayr buu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam haddaba maxay ku heshay muxaadaraad badan bay dhageysatay cilmi bay faa'iideysatay saadarteed baa waxay diiday maykalkii iyo jeestadii iyo wixii hadda aan tilmaanay markaas waxay ka doorbiday magacyadan saxaabada qiimaha iyo wanaagga leh walaalayaal aad iyo aad aan u dadaalno ilaahay aan ka cabsano khayrkii taacada aan ku socono mawduuceena saalixad noqo waa mawduuc cajiib badan gabdhaha la qabo ama guursada waxaan aad ula yaabanahay horta in allaala intaan niman la yeelanina wal akhlaaq fiican yahay maalintii la guursadana qayla bilaabata maxaa dhacayta sidii hore ma bala ahan xijaabka waa qafiifaya dugsigii waa qafiifaya xifdigii waa qafiifaya markaba la rabay oo iskun aad dhashood xasishay inay wax ziyaadaan laakiin way nusqaamaan ilaa hadda ma naqaan ciladu sida ay tahay imeeshii markay ka jirto ilaahi subhanahu wa ta'ala ha ka cabsadaano dumarka la qabo naag waxa u fiican saalixad u ah u khayr badan sida rasuulku tilmaamay midda markaad fiirisana ku farxad gelisa mar allaala markaad amartana amarkaaga qaadata buu dhahay nabiga mar allaala markaad maqan tahayna gurigaaga iyo nafteeda ilaalisa waa saalixad gabdhaha saalixaadka saa lagu yaqaanaa oo ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa markaas saa u eegto intay ayadu qosli adaa qoslahay maantana wajtub baajira indha la isku bedela afka la maroojiya waxyaaba fara badan waa laba isqabta saalixad ma ahata na khayr badan ma aha mar allaala markaad fiirisabo dhahay nabiga way ku farxad gelinaysaa waa muusoonaysaa waad qoslaysaa taas la rabaa talabaadna markaad amar siiso
amarkay qaadataa. kan soo qabo waa yaalaa, kaa ii soo shub waa yaalaa, saabuunta musqusha ii geey way taallaa. naga tag waana wareerisay. xabadda haddaad u dirta maanta ka labaad hal mar noo wada dir noo ay ku leedahay, hal mar noo wada dir. saalix aaway saalixnimada, war aaway wanaagga walaalayaal, war aaway sharaftii. waxa janno lagu gale naar lagu galo waa asaga. saa darteed waa qodobka labaadee markaad amar siisa amarka qaadata buu dhahay rasuulka. midda saddexaadna nafteeday ilaalisaa, gurigana way ilaalisaa. waa imaanayaa iidiina ma joogto, guriga yaa jooga ilmihii yaryarkaa la iskugu tegay. ka xafaayaddaa ku xumaatay, kan biyo isku daadiyey, ka sariirtu wax ku shubay. meeshay imaanaysaa ul bay qaadanaysaa dhammaan. maxaa garaaci adaa garaacani, adigaa dhibaataysan, saalixad noqon weysay. saa darteed baa waxaa la leeyahay marka amarka la siiyo yay amarka markaa fulisaa. gabar walba oo shanteeda tukataa, oo soonkeeda soontaa, oo zawjkeeda ateecda, oo jirkeeda xafida, 8 janno albaabahooda mid allaala miday doontay ka gashaa buu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal aad aan u dadaalno, ilaahay aan u soo noqono, khayrka wanaagana aan badsano, kuuni saalixiin aan noqono. wabillahi tawfiiq, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. جزاه الله خير الجزاء وأحسن الله إليك ونفعنا الله بك. إلهي أجري حسنات فربضا الله كسيو. شيخ محاضرة قيمك ونسو جيدي وحال كان